wargeyska AS ee dalka Spain ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in la rajaynayo in kooxaha Paris Saint-Germain iyo Barcelona ay wada gaaraan heshiis ku aadan dhanka suuqa kala iibsiga. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Andy Robert ayaa xiliyadii la soo dhaafay si weyn loola xiriirinayay in uu dhaqaaqayo kooxda Barcelona inta lagu jiro suuqa xagaagan. wargeyska ayaa waxa uu hadalkiisa intaa ku sii daray in Paris Saint-Germain ay weli ku raad joogto sameynta saxiixyada xidigaha khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Busquets iyo Ivan Rakitic. si kastaba ahaatee wargeyska AS ayaa uu xaqiijiyay in xiisaha PSG ay ku muujinayso saxiixyada labada xidig ay ku qasbi doonto inay u ogolaato Andy Robert u dhaqaajista garoonka Camp Nou maadaama adeegiisa ay xiisaynayso kooxda reer Spain ee Barcelona. wargeyska ayaa intaa ku daray in Paris Saint-Germain ay suuragal tahay inay heshiis la gaadho Rakitic si ay Andy Robert ugu dhaqaaqo garoonka Camp Nou maadaama uu laacibka reer France diiday inuu heshiis u kordhiyo kooxda PSG.